بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal, ilaahay baa mahadoo dhan isagay u sugnaatay mar hore iyo mar dambaba. shukrigiisana ma koobi karayno, nicmadiisana ma koobi karayno. nuqsaanta nimcada ilaahay uu nasiiyeen allah inaga hayo. caawa oo habeen khamiis ah oo 22 dilqicda ah, waxa runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala jaanis inoo siiyey in sheekheena sheekh xuseen cali uu sugaal inuu marti inoogu noqday masaajidkan calimataan si uu kelmad runtii inoogu soo jeediyo diinteenna iyo adduunyadeennaba anfacda. waxaa runtii sheekha aan ka horraysiin lahaa, waxaa ilaahay igu ogyahay aniga, idinkuna markhaati aad iga noqon doontaan, culimmada ana aadka u jecelahay inuu sheekhaasi ku jiro, ilaahay dartiina u jeclaaday, isagiyo culimo badan oo kale. qodobka idinkuna waa jeceshiisa maaha. allah yubaarik fiikum. waayahay, waayo waa wata aynu ku helina khayrka iyo ajriga. qodobka labaad ee runtii sheekhan aan kaga helaa runtii waxa weeye, waxaynu u baahannahay qalbiga cid la hadasha. qalbiga afka uma baahnayn, wacdi aan afka ka soo boodo ma doonayna, mid qalbiga ayaynu doonaynaa oo quluubta la hadla. runtii culimada aan ka hela ayuu ku jiraa, ee quluubta la hadasha ee aniga dareen wanaagsan igu samaysa. qodobka saddexaad, sheekhu aniga gacan weyn buu igu leeyo, markaan Jabuuti ugu tago anigu wuu soo dhaweeyaa, laakiin anuma soo dhaweeyo. marka laakiin sheekh alxamdulilah, jamaahiirtaasi hadday caawa ka hor fadhiyaan, alxamdulilah intaasi khayr bay noqon doontaa, laakiin abaalka culimadu ma gudi karno. ta afraad ee ugu dambaysa, sheekhu markii ugu horreysuu dee masaajka kelmada ka jeediye maaha. sheekhu in badan buu dee inoo jeediyey, laakiin tatajadad mar waloo culimmadu kuu timaado waxay kuu keenaysaa khayr inuu kuu kordho. isaga iyo culimmada kaleba waa ku soo dhowaynaynaa masaajidka, khayrkaynu ku soo dhowaynaynaa, waa ka faa'iidaysanaynaa. sheekhana waxaan leenahay, haddii isagoo musaafir ama mashquulsana aynu soo qabannay, sheekh raalli baad ahaanaysaa, laakiin si ajri weyn baad helaysaa. markaa sheekhaynu insha allah kelmadda ka dhagaysan doonaa. wajazaakum allahu khayraa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حمدا لله، إلهي بانكم هذين مساجد كجامعة إنه سو كل ميي. wallaahi kulligeen waxaan doonaynaa maaragtaana ilaahay inaan u dhowaanno. a'immadeenna iyo culimmadeenna akhyaarta
khayrka badan leh masaajidka inagu soo dhaweysay iyo majmaceena barakaysan keena hadlaaya iyo keena lala hadlaaya inteenuba waxaan u baahanahay ilaahay inaan u dhawaano inaan ilaahay u dhawaano oo aakhiradeena u diyaar garowno oo adduunyadan aan ka qaadana diin waxaan ahay ninka ka qaata uu khasaaray nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay hebel uu dhintay haddaad maqashana noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiraduna way bilaabantaay iyadu dhammaad ma leh haddaad maqasho hebel uu dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiradii weyna ka badnayd baana u bilaabantay hebel baa go-ay inaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa daday adduunye muxuu ka tegey caalamka samadoo dadka khalqiga ku noole malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey inaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqalno hebel baa go-ay muxuu ka tegey laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegee lahaa maydka marka la qaadaayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro naftaa la sii waday hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu wan liibaanay horay ii geeya bay leedahay qabrigayga horay ii dhiga haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay halkee baad ku wadaan hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi ilaa jinkiiyo insaga un baanan maqlayn hadday labada la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maanta waa adduunya berri waa aakhiro weeyaan maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya laanna saxaabadu bashar bay haayeen cabdillaahi bni cumar bnukhadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed may qusli jireen haa way qusli jireen buu yidhi laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi malaa'ig may ahayna bashar bay ahaayeen sida innaku aan u shaqaysanay u shaqaysanayeen sida innaku reere iyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa diinta ayaa ku weynayd aakhirada ayaa ku weynayd maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyakoo fadhiya marka ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qosqoslayaan markaa buu nebigu ku yidhi low aghartum dikra haadimi ladaat la shaqalakum cama araakum canhu yacni almowt haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhire inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nigu arkaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gabalkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato uunbaad isoo dhiganayso ood iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tahbiit fainahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembi dhaaf u weydiiya su-aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya haddaa su-aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su-aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allii markaa qofka innaku aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashiin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin
hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira wayowma yaquumu alashhaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doona oo ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal ilaahayna haynagu sugo allah haynagu sugo allahna inoo dhib yareeyo saddexdaas su'aalood baan qof kasta la weydiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqa kuu muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arko adduunka inta la joogo jidhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaada iyo manfacadda thawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaat wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada yimaadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada ay noo muuqato aakhira ay nooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto laqad kunta fii ghaflatin min haada fakashafnaa canka ghidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daah iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana thawaabkii ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay aakhiradiina wax kuu muuqatay noqoni doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karayo laakiin aayaadka ilaahay baa la arkayaa wa min aayaatihi alleylu waannahaar habeenku waa aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheegu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo noloshiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo lab iyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka uu shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayba waa laynaga qariyey ma arki karayno sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkeegaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisa aad arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay way u ooyaan haddaad tidhahda maxaad la ooyey waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan oo dhan yahay jidhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyey haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaabaa meesha ka baxay shayga qiimaha le waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may si aad u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyey ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamka oo dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamulghayb la yidhaahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su-aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu yidhi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dowladdu ima rabbaynayn
ilaahay baa rabbaynayay xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa rabbaynayay anu kuma noolayn waxaan adduunyada dulya alloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su'aasha dadka maanta haddii mikrafoon la qaato leeyahay war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halka uu ka soo galabo markaaba ku sheegay mid muxuu ku oran wallahi meherad yar oo halkan ku taalaan ku noolahay mid wuxuu ku oran ciyaalkiiba dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay haddayna baxeen maba noolaaneen mid muxuu ku oran beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku oran aqal yar baan noo kareysan oo ku noolahay reer Djibouti waxay yiraahdaan lataraadkii baan ku noolahay lataraadkii macaashkii may waa inaad tiraahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay anaku الذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وأين قفك قرطاع دودا هذا استعمال ليسو شفاء الله مسعته شفاء حق إلهي بكتما ضاع دكان كاقي مهرد هذا يسوق قاقا وأسباب ويان لكن رزق حق إلهي بكئمنا يا وأين أتقرت ربك والله ويان معبودك وإلهي ويان كعبادة متيستي وإلهي ويان كبريادة متيستي وإلهي ويان كالرجاها متيستي وإلهي ويان كعبسدة متيستي وإلهي ويان كليجي رجي كليجي كعبصو كليجي بريو بايداد كليجي وشيغو ربك والله دين تيدنا الإسلام رقم كيغو إسلام وحكى لعنكم الرقمو وحكى لما آمن سني دين بانو نولهي دين بان برانيا دين بان كشقينيا قفك دين بان كجعلانيا دين لأنا وكنا عيا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان برسول كويري نكا هدوح بحن إلهي درتي أبحن هدوح منعن إلهي درتي أمنعن هدو عد جعلان إلهي درتي أجعلان هدو عد نعي إلهي درتي أنعي كاس إيمانك وعندما ما يسترتب النبي قول عليه الصلاة والسلام وأين نقطة قف لله أنه لو تاريخ الصحابة يقول على سيرة علي بن أبي طالب ننبايد هل من مبارز وحل معركة مسلمين تلو حقا أي جوغان قال دون حقا أي جوغان أيو يري ننكي أقوي تالوينا قال دا أيا صودا أو يري هل من مبارز أيا معركة يقول صودا أيا علي بأودعي رضي الله عنه علي بن أبي طالب ننكي انتو قبتيبو لقدي مركو سيفتي قاتو يري قلي مركو سننا علي بن أبي طالب وننكا كورفا ديبو قنوف وجيغا لغا طفي مركاسو علي قنوفا لغو طفي وجيغا لغا طفي قال كينا دولكو جيفا علينا سيفتي بو هايستا قنوف با لغو طفي علي وصريا وككعي علي صحابتي waxay ku yiraahdeen ya Ali maxaad uga kacday baa lagu yiri gaalnimana ninkan diinna waad ula dagaalameysay adigana qandhuuf kugu tufee war marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayay hadda cara ay soo gashay buu naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu yiri lillaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban cidaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan cidaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg ilaahay dartii baan u sheegi khayrkan dhageysan ilaahay dartii baan u dhageysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakameynayso si su'aasha qabriga kugu dhib yaraato tiraado aniga diintaydu waa islaam markaasaa nabigeena Muhammad alayhi salaatu wasalaam baa la hor keeni oo la oran doonaa maxaad u taqaanay shakhsigan markaasuu muuminkii leeyahay waa nabigeygii Muhammad alayhi salaatu wasalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqay oo la oran doonaa an sadaqa abdi adoonkaygi run buu sheegay afrishuhu min aljanna firash jannada ka soo qaado u gogla walbisuhu min aljanna dar jannada ka soo qaado u xidha waftahu lahu baban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halka ka daawaday baa la oranayaa dulkaad ku celisay meydka dhulkan ku aasnay minha khalaqnaakum wa fiha nu'iidukum halkaad ku aasay waa dhulka dhexdiisa weeyaan إن كتاب الأبرار لفي عليين جندنا وفوق 7 سماوات هل كاس قفك مؤمنكم جندي سيكدا ونيا سدا إنكم بآلة دنيا رأيمك أنا سنة موبايل كإجابة أتكو حيستيد قفك أدوية هلك وقدم بيجوجا مقالي موقال هلك أدو قد ونيسو قارة أمريكا قفك جوجي أي أديكو هلك جوجا مقالي موقال أتكو وده هل ليسان مؤمنك قبرك دحدي سنة
nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegoo yidhi qabriga dhexdeeda daaqad looga furayaa halkaa buu ka arkayaa jannadiisii iyo naciimtiisii iyo xuralcayntiisii markaasaa la odhan doonaa iska seexo qabrigu waa meesha mu'minku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa leanna jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhu lmowt wa ahluljannati laa yanaamuun baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahluljannuhu jannada hadday galaanna ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahluljannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waan kuu sheegayaa laa yamasuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahluljannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daal oo soo gaadhayaa ma jirto jannadaa ay galeenna kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وك إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه شيء سورة أفوفينا با إلهي يري إسرافيل با سورة أفوفايا لأن نلقى كالصبح دونان لأن حق إلهي بالله سأرين دونا مرقاس قفك مؤمنك إيمانك لها وحولي يحي وما حيب لا يا هرددي نقصو كعيي waan jiifnay waan hurudnay hurdada maxaa naga soo kiciyay buu leeyahay markuu arko khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nebiyadu ay noo yabooheen ilaahay iyo rasuushiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yowma alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin keliya نولش أدويدو وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بايل هيري آية الليل آية النهار نولش أدويدا عن كل نول هاي ومالين يهبين مالين تينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسانيسا واد سيحانيسا قبرك هدين لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله هيري نعم الدويدن انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالني هبين قبرك هدين لقو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي قنوش يقولي قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمنكينا beerbeeraha jannada kamida looga dhigaya gaalkiina waxa looga dhigaya godgododka naarta kamida looga dhigaya dina uu hurda oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halka ha ku daalo ha ku nasto min aadam calayhi salaam laga bilaabo ila joogadeena wixii adduunyada bini aadam soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurda way nasanaysa oo waxa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaan way hurdaan maalinka qiyaamaha suurta la afuufo bay qabriga ka soo bixi doonaan laysa ala ahli la ilaha illa allah wahshatun fi quburihim wala hasratun fi nushurihim وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها dadka adduunka dusheeda laa ilaaha illa allah ehelkeega noqda allah inaga dhigo qabriga markay galaan ku kaliyoobi maayaan maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug geliya arki maayaan waxaad moodaa buu nebigu yidhi inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan ilaaha waxaan ku mahadinnaa
naxdintii murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaan ka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan dadna way soo baxayaan yowma alqiyaama maalinta sara jooga waa yoom qur-aanka yoom buu sheegay habeen ma sheegin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay'a yowma yanduru almar'u maa qaddamat yadaah يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الصاخة هبين من مغليسد هبين كدون دون واكاس قيامها مركو إلهي كور رمايو ومالين وين هبين مال ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم قاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيقي وكنتم كنوا صندود ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يري أفرتن كنوا صنوا على الجوغي طبان كنوا صنوا حسابتا كل ماني دون تبو يري أفرتن كنوا صنوا يا سيد الله تاقنان دونا طبعاً كونوا سنن حسابتها كل ما دونت لنا عربي ورير بادية أيا سرك عير يا رسول الله ما لقى قيامة خلقك أيا حسابي دونا مرقى سوري إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقى نكي عربي انتو سيجي استيبو يري نجونا ورب الكعبة كعبة ربك أيا كل دارتي وان بدباد نيبودي وان نبت قلبي يري مرقى ابو النبي يقول صونقو سيادو كل نبت قشيبو كيري بلي شك وعد وكريم إلهي وكريم hadduu doono iska kaaya cafin buu ma cid baa isaga qabsanaysa buu yiri waa kariim ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي قولي إنك مدى مجرو هدو جران أبو رسول كل أيهي ربي جيبوا قيامها الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مال انت عد وكل أفعلين يسا مجرته لغة عربية لغة هذا الله يا حاجة مدكتو ايجي عمل جيسيبو أركي حاجة بدحدو ايجي عمل جيسيبو أركي هورتيسو ايجي نارتي بو أركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي قول عليه الصلاة والسلام نارتا قاشان كسميست ابو نبي قول قاشان كي يشا تمر جيحيد وصدقاء عضو بحسان كولين نقطنا تمر جيحيد ولو بشق التمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة ابو نبي قول تمر جيح تمر اني كان هلين ابو نبي قول اياي هذا الكون اكسن هكو هالله كلمة وناكسن كو هذا سبحان الله وكلمة وناكسن الحمد لله وكلمة وناكسن أمر بالمعروف وكلمة وناكسن ذكرك وكلمة وناكسن استغفرت وكلمة وناكسن لا إله إلا الله وكلمة وناكسن ولا القاقا مسلم قد خيرك عضو الشيكتا وكلمة وناكسن منكر كوضو مدى كريبتانا وكلمة وناكسن كلمة الطيبة صدق أبو نبي قولي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آياتي مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ضدك والله سو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلاءانة أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان وفوا البباردي سيبا كتا الله واسدي لقو دلي ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقي دمر مالنتاس ما لسدح سعونيا هوا لسدح سعونيا قفك كلمونا إيجين مركز أبو نبي يا عائشة قفك عكس عدم مالنتاس من نبا ما قبض با من نقبا ما بإيجي يا أبو رسول قد هم بقى مجربوا يدي هورتي سواحة على النار تي جهنم قفك عطاء السلمي رحمه الله نكال أورنجري وحوها نن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صدن سنة بالي نكاس دولك مويان عرك ما إيجن مركز الله قولين مروق تم بدن وما حيبا لقولي ما دتك وحي أوجان بعد أديكو أوجاتي باللقيولي دتك عنيك وحبيك ما قاليني تيدا عنيكو أنك هلا يا وعن النيش يا الموت في عنقي جريدي بقرت إيسودان
والقبر بيتي هل كان لا يدقينا وقبر قويان والقيامة موقفي ماشى اللي يجوجنينا وبنك قيامة ويان وعلى الصراط طريقي وضد الله يمرين دوننا وجدك الصراط ويان وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي جاي وحي يقول سمعين دوننا كما ورقبي بود أنكو انت سو مرحلة نيك أي سوغيسو إساقو هادو قصلي ها قصلي بويري أنو تايدا كورما يا بوري انت نولا هاي وهم بنولو شيدا كودا ما يسن بويري ما أنت وأدويو بريتو لو آخر ويان عمل كاغا الله دادا عيسى محال وضاتا محاوتا أنوغو ما أنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شدة قيامة مركو نبي قينو كورم عليه الصلاة والسلام أيه تري يا رسول الله مالنكا سرجوغا أيه وات كيسان كريا بي كتري من يقوى أيه كريا بي كتري كنتم كنو صندور مركابو النبي يقول يا عائشة qofka muuminka iimaanka leh ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin salaada faradka inta tukataan in laag baabanka qiyaamo looga dhigi buu yiri intaan tukanay salaada maghrib 3 daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo muuminka iimaanka leh ee adduunyada intuu joogo ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa meeshuu marayo aakhiradu eegaya meesha aan u socdaa ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxay taraysa hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradeeda dhaawacayaba oo dib ii geysanaya hadhow toole mise waa hadal aakhiradeeda aan ku badbaadayo dhaqaalahan bixinayo ma dhaqaale aakhiradeeda ikabayaba oon aakhira ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacaya mise aakhiradeedii buu dhaqaalahaas iga bixinaya oon ka qabsadaa intay goor tahay مؤمنك هو حساب تميع مؤمنك أدوية دوشيدا إلهي كسو أدعي كسو عابدي صلاة دايرة فردك أنت أتكني إن لعك بابنك قيام الله قد قيا dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada hortaalla iyaka aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay ku aakhiradu kugu saameynaysaa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid waxaad doonta cuni kari maysid sidaad doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya wanaag oo dhan kuu diraya dareenkaasaa qofka qabanaya qofku inuu macsiyada waxa ka qabanaya waa dareenkaasi waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nabiyadu dadkay ugu yeedhayeen nabi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisu ugu yeedhay aakhiradan xaggeegu ugu yeedhay waxa ilaahay kaaga raali noqona waa iimaan iyo camal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix maalin maalmaha kamida ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar kamida aqal yar oo cariish markaa ay dhisayeen markaa buu nabigu maxaad haysaan waxay yiraahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhisaynaa markaa buu nabigu wallaahi anu ma arko ilaa saacada ka degdeg badan buu ka yidhi saacada qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalka dhisaysaan malagii suurta afuufayay waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foonintii buu qaatay lugihiina uu kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanayo markaasay yidhaahdeen yaa rasuul allah maxaan idhaan anoo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa
si waxay jannadii iyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan. innakana maanta maa sha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yar yahay ilaa man raxima rabbi mooyaane. lanna qalbigan uu saamoobaa qalbigu. ina alquluuba la tasda kamaa yasda'u alxadiidu idaa asaabahu almaa. birta xadiidka biyuhu hadday taabtaan daxal bay ku reebaan biyuhu. qalbiga bini aadamkuna daxal buu yeeshaa. maxaa qalbiga daxalaynaya? waxaanaad eegaysa qalbiguu saamaynaya, waxaanaad dhegaysanaysa qalbiguu saamaynaya, waxaanaad ku hadlaysa qalbiguu saamaynaya, waxaanaad ka fikiraysa qalbiguu saamaynaya. waa afarta qasabadood ee qalbiga bini aadamka ku socoto weyn afartaas. afartaas saabaatul qalbi bay culimmadu yidhahdaan. waxaad eegto qalbiguu galaa, waxaad ku hadasho qalbiguu galaa, waxaad ka fikirto qalbiguu galaa, waxaad dhegaysato qalbiguu galaa. qalbiga daxalka maxaa lagaga biiyaa? laba shay bay culimmadu yidhahdeen, laba shay baa qalbiga daxalka lagaga biiyaa. qur-aanka akhriskiisa oo la badiyo iyo aakhirado inta badan la sheegsheego la xasuusto laga sheekeeyo. labadaa maanta may nagu yaryihin mise way nagu badan yihiin? yaa qur-aanka akhriskiisiina waa nagu yaraaday, aakhirada sheekadeediina waa nagu yaraatay. bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen. dadka muslimiinta ee zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan. isbeddelka nagu dhacay eega. suuqa masaajid suuqu lmuslimiina ka musallaahum buu yidhi cali bnu abi aalib. suuqu lmuslimiin aswaaqda muslimiintu waa sida masaajidooda oo kale weeyaan. sida masaajidda ilaahay loogu weynaynaayo ayaa zamankii nebiga suuqana ilaahay loogu weynaynayey. sida maskiidka dhexdiisa ilaahay aan loogu caasiyaynin ayaa suuqoogiina ilaahay aan loogu dhex caasiyeyn. innakana zamankeennan maanta sheekadii dibadda taallay ayaa laga yaabaa in la keenay maskiidka gudihiisa. nin buu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam maskiidka dhexdiisa baylah ka yaboohinaya. markaa buu nebigu yidhi ilaahay kuuma soo celiye buu ka yidhi. haddaad aragtaan buu nebigu yidhi nin maskiidka dhexdiisa baylah iyo baadi ka yaboohinaya waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma soo celiye dhahada. haddaad aragtaanna nin maskiidka dhexdiisa ganacsi iyo tijaaro ka dhex samaynayana waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma barakeeye dhahada. innamaa buniyat almasaajidu limaa buniyat lahaa. masaajidda wixii loo dhisay baa loo dhisay buu rasuulku yidhi. nolosha masaajidda taalla bay culimmadu leeyihiin ayaa la rabaa in dibadda loo saaree nolosha dibadda taalla maskiidka in la keeno maaha. cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo cahdigii saxaabada dadka muslimiintu nolosha maskiidka ay ku haystaan ayay dibadda ula baxeen. halkan ilaahay bay kaga baqeen, dibaddana ilaahay bay kaga baqeen. halkan ilaahay bay ku ammaaneen, dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen. halkan aakhiraday ku weyneeyeen, dibaddana aakhiraday ku weyneynayeen. wallaahi siiraday ku taallaa. cumar binu khadaab suuqa madiine intuu gala buu odhan jiray halkayna fadhiisiya ilaahay saacadaha rumaynay kaalaya. cabdullaahi binu cumar intuu u yimaado tufayl buu ku odhan jiray ina mari raac buu odhan jiray. xaggeen tagnaa? suuqaan tagaynaa. suuqa iyo way soo baxayeen. haddana maalin kale uu yidhi ina mari raac. haddana maalin saddexaad buu yidhi iraac. waa cabdullaahi binu cumar in cumar binu khadaab iyo tufayl oo taabici ahaa. maalkaasuu markaa dhowr cisho markuu suuqii ku celceliyey uu ku celceliyey buu ka yidhi ya bnu cumar suuqa waadna geysaa maalin walba, badeecadna kama soo iibsatid, badeecadna uma iibgeysid, badeecadna ma soo baayacdid, meelaha dadku fadhiyaana nama fadhiisisid. war halkan ina fadhiisi buu halkan noogu sheekee buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar. sheekada saxaabadu diin bay ahayd. markaa ibnu cumar baa ku yidhi waree kaagan caloosha buuran li innamaa naqdu min ajli asalaam. waxaan u kala haynaa waxa weeyaan dadka inaan salaannoon baan u kala haynaa buu ka yidhi. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu baan u kala haynaa. waa duco weeyaan, ducadaa baan u kala haynaa. muslimiintaan u ducaynaynaa, iyaguna way noo ducaynayaan. 100 qof baan u ducaynaynaa, 100kaasi way noo jawaabayaan. waa duco laga yaabaa 100kaa awliye ilaahay
intay ku dhex jirto in ilaahay ducadooda noo aqbalo salaada muslimiinta la siiyo waa maxay salaanteenu assalaamu calaykum nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ha ahaadaan kii kale muslimka waxa uu ku leeyahay adigana nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ahaadaan buu ku leeyahay salaantaasaan la soo kala haynaa 100 qof baan salaamaynaa 200 qof baan salaanta ummadda salaamaynaa way noo jawaabayaan waxay garanayeen saxaabadu in salaanta muslimiinta ay la dhaxmareen ilaahay intuu u aqbalo inay nabadii helaan oo naxariistii helaan oo barakadiina ay helaan inagu bagaashka iyo badaacadda iyo adduunyada loo kala lahaa mooyaane sunnaha nebiga loo kala lahaayoo lagu noolaan lagama dhadhacsana maanta salaantaasaa lagu dhargayaa cali bin abi taalib inuu yimid uu ka yidhi saaxiib alciyaal baan ahay maciishadii baa igu adkaatay markaasuu yidhi lacallaka tanaamu bacda salaati alfajri buu ka yidhi malaha salaada fajr kadib ayaad seexataa buu ka yidhi markaasuu yidhi mayma seexdo lacallaka tamshi amaama man huwa akbaru minka sinnan buu ka yidhi malaha qof kaa da'weyn markaad la socoto ayaad hor socotaa buu ka yidhi haddana hor martaa markaasuu yidhi may haddana markaad ducaysanaysid ma laga yaabaa inaad labadaada waalid ilaahay dembi dhaaf aanad u weydiin markaasuu yidhi haa markaa birta arsaaqada kaa xidhay waa taas labada waalid ducada ku dar buu arsaaqada way kuu furmiyeen meelaha inagu imika wax ma ka egeegnaa ya may salaanta dadka ay salaamayaan bay risiqa ka dhex arkayeen waalidka ducadiisa u ducaynayeen bay risiqa ka dhex arkayeen istikfaarta ay badanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada ay tukanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada ahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaad moodaysaa salaad jamac in la tukanayo masjidka zaxmadda iyo cidhiidhiga ka dhacaya diintan ilaahay nooma siinin keliya inay aakhiro manfacadeedu nooga bilaabanto bal ilaahay diintan waxa uu noo siiyey inaan adduunkan iyo aakhiro aan ku dhargno ku libaano marka noloshan adduunyada intaan haysano waa fursad yaanan dayicine adduunyada diinha ka qaadanno diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallaahi hadday aakhiradu inala weynaato dhaqankeennaa toosi oo risiqeennaa xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli waayo laana mujtamaci waxay noqonaya mujtamac aakhiro ku xisaabtamaya sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhulbeereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka intan leeg baa ka soo baxee malaha waad ilowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi may anu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaa le iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaa le isii weeyaan teen waxaan ku dagaalamayno dhulkan anigaa le gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaa baa isku haysannaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adigaa le iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska le adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahay adigaa iskale iga qaado waxaan malihi anigu yahay lacagta intan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tegeen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kalaa leh ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war malihi isagaa ilaahay siiyey ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaada zamankan laga yaaba inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena ilaa qaar baa iska fiican way jiraan laakiin kuwada waxa iska jira dawladda u shaqeeya moogtaa xoolaha dawladda iska keena halka ka baxay ninkuna ma odhan wuxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil adiguna gabadh
labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi bal fiirso islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale 3 nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhahdeen noo qaad markaasuu nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasay dee annakaa qaadanaynaa dee haddaad qaadataan i raaci maysaan waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahiduha nebi ciise calayhi salaam 3 nin way ka hadheen baa la yidhi nebigii ayaan darrada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin galno waa la naga dhici habeen han ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yidhahdeen laba dahabkaas sii ilaaliso midna magaalada intuu tago cuntahay noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini'aadanka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nagu fiican yahe ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha han ku ridno han ku aasno dahabkana labadeennu han kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adiga unbuu kugu fiican yahe cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciise calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo 3doodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam waryaada buu nebi maxamed uu ina leeyahay dhegay jidhka bini aadanka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkoo dhan baa hagaagi hadday baanaatana jidhkoo dhan baa baanaanoo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa kaliya hagaajiya waa markay degto ilaahay macrifadiisu macrifatullah Uthman bin Affan Allah raalli ka noqday addoomihiisii addoon ka miduu u yeedhay maalin wuxuu yidhi lacagtan qaad Abu Dar al-Ghifaari u geey hadduu lacagtaa Abu Dar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey Abu Darna markaa magaalada Madiina dibaddeedu deganaa ribda meel la yidhaa oo Uthman bin Affan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadkan taabiciinta ee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyadii la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga la cunayana weli uu cunaa isagu Abu Dar al-Ghifaari radiyallahu anhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa ma hinde ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel lahay oo yimiday uu salaamay wuxuu amiirkii muuminiinta Uthman baan salaankaaga sidaa waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar al-khilaafa ka waran masjidkii nebiga ka waran muslimiinta xalqooga ka waran markuu uga warramay ayuu yidhi lacagtana uu ii soo dhiibo wuxuu yidhi Abu Dar u gee lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu yidhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa Madiina joogtee ciddaas sii ka dha buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi karaa uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay
baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsaneed iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istighfaar baan haystaa quraan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weyn adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninkan lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu abudar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye ar walaal addoonnimada han ka baxe i xoreeyoo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi kaa qaadan maayo waxaad doonta akhri markaasuu yidhi or iga qaado oo ii naxariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagta iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abudar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buu yidhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wadu cusmaan u keenay wuxuu yidhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha abudar alkhifaari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaadii aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyadaa maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyaku adduunyada iyakaa fuushanaa innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni wakhti ku bixiya bay culimmadu leeyihiin wakhti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogto bay doonaysaa hay ka tageen bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhira ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakhirada ayayna kaala weynaan usmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto cusmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimid cusmaan binu cafaan wuxuu arkay cusmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay cusmaan baa ninka u yeeray war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale meesha ka socda buu yidhi markaas maxaad aragtay maxaad u socoto dee nebiga ii ka soo diray buu yidhi sal alla alay slam oo yidhi cusmaan u tago waxaad ku tidhaahdaa waxuu nebi maxamed ku amray wixii caawa aan carooska iyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi dee maxaad u kacday bood igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khaadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacagu u dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen innagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhaan way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi laguma dhisin israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma
تجارة هذا حر أمتهد وأين حتى علم البيع والشراء علم البيع والشراء علماء قالوا يويدي عثمان عمر بن الخطاب سوق مدينة انتو قالوا أورنجري لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تفقه الدين ورياضة السوق يقع نوح كوي بن كرام مجرب عمر أورنجري إلا نن مسجد النبي انتو تقي علم البيع والشراء علماء كصبر تيمو يعني إنك أنا ما أنت عيد والبقى نعصب بالوضوء شين يتايلان بلغوا الدولي هبري با سعودو كل شين هاو سعوتا حاجه سعونا war muumin waxa la doonayaa inaad noqoto muumin labada indhood ee kugu taala ilaa adduunyadaada ku eego ilaa aakhiradaada ku eego aakhiradaada inay adduunyada ku seejin adduunyadani waa in yar waxaan joogaynaa in yar walaalayaal inta yar aan joogno ilaahay ha kaga baqno oo diin ha ka qaadano oo diinteena ha baranno oo diinteena ha ka shaqeyno oo zaman adag baa lagu jiraa zamankeen lagu jiraa المتمسك بدينه كالقابض على الجبر ابو نبي قولي والزمن النبي محمد سي شيغي كون يا فربقولو سنه كهر نيغا دينتا مالنتا يرادا وان حجسن waxa uu ka dhignaan doonaa nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yiri bulshada ku nooshay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharku batay meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma wax ilaahay ka farxiya mise wax ilaahay ka cadhaysiya مجتمع ومجتمع قفكو هدوير هذا ما أنت صنع النبي كفر عليك وأتكان يسألون قبصدوا إلهي ودب يريمو يعني مركز زمن هذاك بنكو جرنا وحن كقبت بعدين ومحي رجوع إلى الدين إن الدين تنوصل نقولنا ودذلك الدين تاع علماء مر والبين نوقو باقيان مساجد اللي قلنا هذين أيو مراكز اللي قلنا هذين أيو مدارس اللي قلنا هذين أيو اجتماعية الله قبنا يا أمد الله كل لو فكر يا ورد ذلك الدين هذا ما أنت عالم كالسعودة للربع عمد إنه إن علماء أنت قرب جوكسته عن ملك اليهود جسد إن شاء الله هذا تام قدونا ذلك الدين تا بس دقيستيال ونكسن ما نقولنا يا دقيستو ونكسن لو حكوا ونكسن دقيستوا من الدين ويان لكن وحال إن النقطة أديك الله قربا إن الدين تقيبت هذا وكقاضته وتكقاضن كرتا صحابة رسولكو نول بسلاحية دي لهي وقليي ومدو كو أنفعي كي علم لها علمك ومدو وحكو تري كي دقال لها دقالو ومدو وحكو تري كي رغنما لها رغنما ومدو وحكو تري كي وجاهد لها وجاهد دي سوء ومدو وحكو تري اسماء بن عفان عمر بن نبي قدري عمر بن نبي قدري مكة مركز صلح الحديبية وكعذر دارت عمر وعدانيك ما يقول عثمان باكون مناسبة بودي عثمان باكون مناسبة عثمان بن النبي يقول دل ورنتي عثمان هذا قلت خالد بن وليد جيس النمدي الرجل نمدوا لها ومدوا وحكوا تري ما أنتوا سوى إسلامي بن النبي سيفته أوكيني سيفته نيجا قبض بودي لا هنا دمدا في ويدي معان كاكا قادا سيفته يشك أنت أصلا مسلمين كلها يبوا كيدي كاقادم معي أنت المسلمين كلها يسي إن كبدا إن العدو إلهي كل إنسان كاجر رجينه قال بودي سيفته إلهي دين تسوي جهاد والله رجعني ما دي بحاجة كلا الله بدله بس كي عالم كها علمك ومدى كو أنفعي كي دقال لها دقاليه سو مدى كو أنفعي زمن كي نبينا عليه الصلاة والسلام وحو نبي ديارية أمد نول بصلاحية كجرتا لو استعمال يدين تدالك مركا إنكم كل جين إن شاء الله تعالى خير بين نجم مغدا خير جعل بين نجم مغدا ده إن شاء الله دذلك دينته دينا عكستبه دذلك دينته وليه والله ورنتان إني شاقي معلنك قرآن كدقة دذلك دينته قيب تسيبه كهيا شيخ مساجد درسك أمد مرنا يا دذلك دينته قيب تسيبه كهيا جماعة عدد إله درت والسعودة قيب تودي بدينته كهيا محسنك رقاليه مساجد مدارس كل سايا دينته قيب تسيبه كهيا وفك مسلم دينته أنتو كقادن كرا وكقادن كرا واعتصموا بحبل الله جمع بالله الشيخ جمع هل ننكستو مسلمة دين تاسي وحوادو قبان كرتاي وروقبو كلمة دون أكسب ونبي قلوا صدقات كلمة دون أكسب طريقة مسلمين تو أيمران نكي كجو يجيت كبو نبي قولي ها جنة قلب رسول كولي جنة أكو أركبولي هوين أيدي مسجد النبي مرق الله قدر إيمان يسي إيه كقاعدة يسي ما ركتاني
waxa masjidka nabiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nabiga looma sheegin waa la aasay markaa buu nabigu yiri jannadaan ku arkay buu jannadaan ku arkay jannadaan ku arkay maxaad iigu sheegi weydeen buu nabigu yiri khayrku yar yaraysi ma leh marka waan inagu dheereeyay in sha Allah ta'ala wixii wanaag iyo khayr soo dhaxmarana ilaahay bay soo dhaxmariyay anigana miisaanka xasanaadka Allah ay saaro ikhlaaskana Allah noo wada ziyaadiyo culumadana soo dhaweysana waxa leena jazaakumullahu khayr sheekh maxamed waxa leena margeysaan marti kuma hiya waan deganahay ya deganahay ma sha Allah ciyaalka reerkii oo dhan baa jooga marka Allahna naga wada raali noqdo kulligeen hada wa sallallahu ala sayidina Muhammad بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل